Assalaamu calaykum dhegeystayaal. Muuqaalkan waxaan rabaa in aan ku bilaabo arrin naxdin leh ee u keentay bulshada iyo qoysaska degan magaalada Minneapolis. Bishii Agoosto 27 2025 magaalada Minneapolis waxaa ka dhacay weerar oo loo geystay iskuul la dhahayo Annunciation Catholic School. Dhacdaankan naxdinta leh waxay sababtay dhimasho 2 caruur ah iyo dhaawac dad badan. Weerarkan waxaa geystay qof 23 jir ah oo hore uga mid ahaa ardadii iskuulkaas. Wuxuu watay qori sharci ahaan loo soo iibsaday, isla markaana ka tagay qoraallo iyo muuqaallo uu ku sheegayo fikradihiisa. Wuxuu sheegay in uu falkan aysan ahayn siyaasad, balse ay ku saabsan tahay dhibaato shakhsiyaad ah iyo xanuun maskaxeed. Weerarku wuxuu dhacay subaxdii ardada iyo waalidiinta ay joogeen. Wuxuu baas ku furay daaqadaha kaniisadda, taasoo keentay dhimasho 2 caruur ah iyo dhaawac 18 qof kale. Arday badan ayaa ku dhuuntay kuraasta hoostooda siday naftooda u badbaadiyaan. Nasiib darro, qofka weerarka geystay wuxuu isku dilay goobtaas. Booliiska, FBI-da iyo madaxda dalka ayaa aqoonsaday dhacdaankan fal argagixiso iyo mid nacayb ku salaysan. Madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka ayaa cambaareeyay, calaamadana hoos ayaa loo dhigay. Waxaana la qaaday tallaabooyin lagu adkeynayo ammaanka iskuulada iyo goobaha cibaadada. Dhacdadin naxdin leh waxay xasuusinaysaa muhiimadda midnimada bulshada, ilaalinta carruurta, iyo taageerida caafimaadka maskaxda. Waxaan u duceynaynaa qoysaska ay saameeyeen dhibaatadan. Waxaan rajaynaynaa inay bulshadu wada shaqeyso si ay uga hortagi lahayd falal sidaan oo kale mustaqbalka.